marka aad ba ugu mahadsantihin dhammaantiin saaxiibayaal. Horta magacayga aan iskiin baro aniga Cabdikariim Siyaad baa la yidhahdaa. Curad baa social media ku jooga. Intaa marka laga imaado Germany baa ku noolahay. Aabbaan ahay sidoo kale 2 hablood leh oo qurux badan maasha Allah. Xaqiiqatan anigu BTC waxa aan bartay 2018 waqtigaa waxaan ahaa arday dhigta dugsi Germany ku yaala isla markaana lagu diyaarinayo shahaadada dugsiga sare. Badankeenu way ka wada dheregsanahay qurbaha marka loo soo tahriibo la imaado ama la dhoof lagu imaado shahaadooyinka Soomaaliya ama Soomaalida badankoodaba lama aqbalo ama wax ma haystaan aqoonsi ah. Sidaa laajigeed qofka raba inuu hore nolosha usii socdo waxa ay ku kalifaysaa in uu dib dugsi sare u galo xitaa haddii aad kasoo baxday waa inaad dib dugsi sare u gasho waayo waxaana kuu saamaxayn haddaad xitaa dugsi sare kasoo baxday in lagaa aqbalo. Sababtaa awgeed ayaa waxa aan ka fikiray maadaama anigu dugsi sare soo dhigtay isla markaana jaamacadda waqtiga aan dhaqaalaha ka dhigtay sanad jaamacadda Hargeysa waxaan ku fikiray in aan dib u bilaabo oo aan waxbarashadii dib ugu noqdo. Luuqadii baan bartay, luuqadii markaan bartay gabadh aad u wanaagsaneyd waqtigaa oo inta badan Jarmalkaygu ma wanaagsaneyn laakiin luuqadda Ingiriisiga si wanaagsan aan ugu wada xiriiri jirnay ayaa waxay ii sheegtay inuu jiro iskuul dugsi sare ah isla markaana Abenschuule ah oo gelinka dambe la dhigto dadka waaweyn 18 ka waaweyn ay dhigtaan. Iskuulkii baan tegey 16 baan tegey iskuulka. Iskuulka markaa amarka Ilaahay macallin waxaa joogay sometimes meel kasta oo iskuul oo tagto waxaad arkaysaa qof ku soo jiita isla markaana qofkaasi shakhsiyadda iyo potentialka iyo nacamti awoodda kugu kaydsan qofkaasi uu dareemayo. Luuqadayda Jarmalku may wanaagsaneyn macallinkayga wuxuu noqon doonaa markii dambena kaaba galaaska macallinka fiiskiiska noo dhigi jiray waa professor buu ahaa ninkaasi. Isaga ayaa aqbalay iyada oo aanan wax shahaado haysan waxba haysan inaan dugsigii sare iska dhex fadhiisto isaga ayaa aqbalay. Waan ku tijaabinay buu yidhi soo fadhiiso 6 bilood baan ku tijaabinay. 6dii bilood waa kasoo dhalaalay. Markaa markay 16kii aan galay ee 18kii marayso bishii 6aad meelaha iskuulkii sii dhammaynayno ayaa marka badana iskuulka lasii dhammaynayo 2018kii bishii 6aad markay tahay samarka lasii gelayo macallimiintu casharadii way soo dhammaadeen badanaa markaa ardayda talooyin bay macallimiintu sheekooyin bay la wadaagaan talooyin bay siiyaan waxyaabay marka dadka badankooda iskuulka ila dhiganayna waxa ahaan arday wada Jarmal kaligeeba madow ka ahaa ama Afrikaanba kaligeeba ka ahaa sidoo oo kalena waxa ahaan dad wada dhalinyaro ah qofka ugu weyn waqtigaa wuxuu ahaa 30 buu ahaa qofka ugu weyn 30 buu ahaa waqtigaa qofkaas baan arkaynay qof aad u weyn aan u arkaynay waqtigaa marka talooyinka uu na siinayay ayaa waxa ay ku timid tala dhaqaalaha buu galay kadib waxay ku timid badankiinu inta qurbaha joogta way ka dheregsantahay dhalinyartu waxaa jirta in si dhib yar deynta ay ku galaan gaar ahaan deymaha moobilada iyo waxyaabo noocaasa inay si dhib yar ku galaan oo ay heshiis moobil iska qaataan moobilkii ugu dambeeyay iPhone 17 iska qaataan taasoo qurbaha marka la joogo qof kastoo qurbaha joogana uu ka dheregsan yahay in yar aad lacagta lagu leeyahay iska bixi lacagtii ma haysid laakiin $2,000 ayaa waxaa laga yaabaa oo iPhone lagaa siiyey in 2 sannadood ama 3 sannadood kolba in yar lagaa goosto laakiin waqti xaadirkan ma haysid lacagtaa laakiin 3 sannadood ayay ku daba soconaysaa deynka aad qaadanaysaa marka arrintaas ayuu macallinku ka hadlayay oo dhaqaaluhu ku timid kadib wuxuu noo sheegay in ay lacagta inta uu suuqa caadiga ku yaala inta ma garanaysaa la siinayo marka la kala jaro lacag u dhiganta 2 moobil in aad ku gelayso adiga oo lagu leeyahay lacagtan ayr hadhowto la iska bixi isla markaana taasina aanay wanaagsan oo markasta qofka dhalinyarta ay tahay deymuhu waxa hoos u dhiga ee dhaqaale inuu samaysto ka hor istaaga ee waxyaabo badan nolosha ka hor istaaga markastoo deyn lagugu leeyahay focuskaagu inaa dhaqaala samaysto kama fikiraysid laakiin waxaa ka fikiraysaa un adiguba isku fiirso waxaa ka fikiraysaa sidii aad deynta ku bixleed waxaa tahay sidii qof xabs cidi ugu jira oo kale marka arrinkaasuu nagala hadlay runtii anuu waqtigaa Yurubna waa ku cusbaa arrinkaasna aad buu ii galay ma fahmaysaa arrinkaasna aad buu ii galay waayo waxyaabo waxaa jira qof kastoo bini aadan ahi marka uu yar yahay uu kusoo koro oo aad u jeclaysto waxyaabaha qaar uu aad u jeclaysto anigu shakhsiyan waqtigan aad dhalinyarta u ahaa aabbaan la shaqayn jiray isla markaana waqti hore mas-uuliyadda i baray oo aan gaari u leeyahay u xisaabin jiray gabadhi u leeyahay
isla markaana waxa aniga nacamti dhaqaalaha, lacag urursiga, lacag dhaqaalaysiga, waxyaabahaasoo dhan mar walba waxaan is odhan jiray waxay ahaayeen prioriteedkayga nacamti waxyaabaha nolosha aan mar walba focus gareeyo aan is idhaahdo si kasta xaalad u adkaato waad ku survive garoobaysaa haddaad lacag save garayso haddii xaalad kastaaba adkaato haddaad lacag haysato waad survive garoobaysaa waa waxaan is odhan jiray marka sheekadani maalinta aad baa aniga gashay aad baan u dhegaystay siduu markaa sheekadii u waday macalinkii ayaa wuxuu nala galay bitcoin oo 2018 taariikhdan ka hadlaya bitcoin buu nala galay wuxuu yidhi halka aad maanta markaa lacagtiina aad ku bixinaysaan inaad daaqada ka saartaan ama aad heshiisa ku gashaan aydan garanahayn inta sannadood ay socon doono aad deyn gelaysaan waxaa ka wanaagsan inaad bilowdaan inaad wax investment garaysataan ama aad wax maal gashataan anigu shakhsiyan maalgashi umaan aqoonin in jago la iibsado ma garanaysaa maalintaa fikirkan ka haystay in guri la iibsado maalgashi umaan aqoonin 2018 wixii ka horreeyey haddana qof dugsi sare ka soo baxo jaamacad nacamti dhaqaalaha africa weliba somaliland hargeysa ka dhiganayay baan ahaa sanad ka dhiganayay haddana mentalitigayga nacamti sida aan maanta u aaminsanay umaan aaminsanin in jago iminka aad iibsato oo dhowr sano kadib aad sii iibisoo kale inay maalgashi tahay in magaranaysaa nacamti keliya nacamti waxyaaba simbala sidaan u aaminsanay maanta umaan aaminsanay kadib in sheekadii investmentiga ayuu macalinkii aad uga hadlay bitcoin baa soo dhex gashay bitcoin markay soo dhex gashay ayuu noo sheegay bitcoinna sidaad intiina badan wada ogtihiin waxay ku saraysan tahayba arrin mathematic iyo physics macalimiinta qofkana nala hadlayna maadaama macalin professor ahaa islamarkaana physics iyo mathematica noo dhigi jiray way u sahlanayd inuu fahmo bitcoin waa 2018 isagoo way u sahlanayd inuu fahmo inuu naga dhaadhiciyo marka this guy anaga wuxuu naga dhaadhiciyey fundamental bitcoin maxay tahay ma garanaysaa xaggee loo socdaa waxyaabahaasu waqti yar oo kooban oo 45 mirir ah uu igu shubayba anigu habeenkii waxaan ka soo baxay dabata meeshii aniga oo gebigayguba nacamtii sida marka maaragtay war cusub lagu sheego oo aad farxad u leh ama war aad is leedahay warkan xageed kasii xaqaysta xagee kasii baadi doontaa aad gebigaaguba kurboonayso gergerinayso anigoo gergerinaya ayaa guriga imid internetkan galay waqtigaa ChatGPT iyo magaranaysaa technologygu sida casri uma sii hayn googlaha gal youtube-ka gal waxyaabo gal waan baadhay waxaan baadhi karay baan baadhay kadib markaa waxaa ii soo baxday in nacamti kelmad uu markii kusoo celcelinayay macalinku oo ahayd bitcoin inay ka hortegayso dhaqaala burburka ama sixir bararka inay ka hortegayso kelmaddii ayaa markaan guriga tagay nacamti wixii is sii weydiiyey keli noqday aad aniga ii gashay in ay tahay bitcoin halka sixir bararka ayaa aniga aad ii gashay dabeet waxaan is weydiiyey okay haddii curadoo maanta 10 sano kadib aad rabto qurbaa timid germany baa timid ma garanaysi xilligaa sharci heli doonto waqtigaa xitaa sharci maan haysan ma garanaysi xilligaa sharci heli doonto ma garanaysi xilliga aad noqon doonto dalkaagi waad ka timid deegaankaaga waa ka timid curad baa tahay curad nacamti aan ku qortayna maadaamaan carruurta ugu weynahay aabahay dhalay mas-uuliyad gaara baa ku saaran moogtay markaasna waxaa ka fikiraysaa nacamti mas-uuliyada gaara baa ku saaran waxaa rabtaa inaad noloshaada ku seef garayso haddana sidoo kale waxaa rabtaa in bal dadkaagana ma garanaysaa aad familkaaga aad wax ku celiso haddana sidoo kale waxa iisii dheereed inaan aabahayba waxyaabahaas oo dhan baa markaa iisii weelin marka waxaan ka fikiray okay haddaad 10 sano kadib aad rabto in aad lacag ganacsi bilowdo haddaad 10 sano kadib rabto inaad guri dhisato 10ka sano kadib maxaad ku gaadhi ba lacagtaad urursatayba haddii dhaqaala sixir barar kow ka sii dhigayo because of iminka badankeenu dadka badana waxay ka fikiraan 10 years kadib ayaan ganacsi bilaabi doonaa iminkaan lacag sii urursanaya so anigu su-aashan is weydiiye waxa weeye 10 sano kadib haddaad ganacsi bilaabayso 10 sano kadib maxaad ku gaadhi doontaaba lacagtaadii waxbaba kama yaalaan because of lacagtaadi sixir barar baa sii dhammaynaya marka waxaa ii soo baxda in halka keliya ii furan ay tahay in aanan suginba 10 sano kadib imika aan bilaabo ilaahumay $50 ka noqoto bil kastana in inta aan karo bil kasta aan sii maalgashado aanan
waxaan haya aan ku bilaabo isla markaana aan suginba 10 sano kadib iyo 20 sano kadib iyo waxa aanan suginba iyo maalinta magaranaysaa shaqo wanaagsan aan helo. Kadib waxaan guda galay in aan haddaba raadiyo in aan isdiiwaan gelin karo. Waqtigaa horta een still 2018 baan joognaa. Markaa waqtigaa waxa yarayd dadka social media Soomaalida ka hadla maan aqoonin anigu shakhsiyan haddii dad waqtigaa ka hadli jirin ma garanaysaa maan aqoonin anigu shakhsiyan. Marka cid aan kala hadlo oo ama iga caawisa sidii laysku diiwaan gelin lahaa. Iminka sheekadu waxay taagan tahay waan fahmay Bitcoin waxay tahay. Hadda u fiirso. Bitcoin waxay tahay waan fahmay. Waan ka dheragsanay inaan galaan rabaa. Nin raba inuu badda galo laakiin dabaashi aan garanaynin baan ahay. Nacamtii ab la iska diiwaan geliyo ma garanayo, abkii waddada loo marayo ma garanayo. Marka waxay igu qaadatay in aan raadiyo muddo dheer aan raadiyo habeenba in yar oo kale. Dhinaca kalena luuqadda Jarmalka maadaama aan baranayay aniga waqtigaa lafteeda oo ma garanaysaa still aan iskuuladeedii ku jiray way adkayd inaan boqolkiiba boqol aan fahmo waxyaabaha qaar. Way aad bay iigu adkayd inaan boqolkiiba boqol fahmo waxyaabaha qaar. Marka taasi waxay iga qaadatay muddo dheer. Markii haddana waan ogaaday markaan ogaaday ayaa waxa ii soo baxday inaanan haba yaraatee isdiiwaan gelin karin ababkan Jarmalka ee aan arkay haddii aanan haysanin nacamtii passport haddii aanan haysan wax identity-gayga ah. Shakhsiyanna maan aqoon abab kale oo waxaa jira badanaa iminka aan maqlay ama dhawaano badan dhoweytoole aan maqlay oo ma garanaysaa la isku diiwaan gelin karo bilaa passport bilaa waxba. Adigoo samayn kuwana maan aqoonin anigu shakhsiyan. Marka aqoontana taasi waxay ku sheegaysaa sometimes mararka qaar adigoo wixii fahansan oo wixii ay kaa dheragsan yihiin ayaa haddana aqoontii ku hor istaagaysa oo haddaan waqtigii garan lahaa abab ma garanaysaa la iska diiwaan gelin karayo iyada oon loo baahnayn passport waqtigaa dee waxay taagnayd malaa 2,500 3,000 ay 1 BTC aan indhaha ku kala qaadayn nacamti fahmay rabay anigu inaan lacag gashado. Qadarka Ilaahay may dhicin. Waa ka soo gudbay. Sheekadii gudahayga waxay ahayd dab ku shidan oo kale oo aan sugayo xilliga saxda ah. This time aniga waxa ii soo baxday in aanay xilligii saxda ahayn maadaama oo ay shuruudahaasi hortaageen. Inaana ugu weyn tahayna inaana passport haysan. Waan iska samray. Muddo 3 sanadooda unbaan indhaha ka daawanayay Bitcoin. Sometimes markaa xasuusto waan iska galaa kooraska oo maanta kor buu kacay maanta hoos buu dhacay analysekeyga iska samaysan jiray chatkan sidaa ugu noqnoqon jiray nacamtii waxay ahayd sidii ma garanaysaa wax game oo kale oo iskaga ciyaaro chatka Bitcoin ayuu yahaan jiray fiidiyoyada YouTube-ka iska daawan jiray markaa rajadii ahayd waqtigan inaan Bitcoin galaa waan dhigay waxaan u dhigtay inaan Bitcoin galo maalinta aan sharci helo laakiin taa bedelkeeda amarka Ilaahay nacamtii meesha lagu wado ma garanaysaa sometimes adigoo sababta la yimid ayuu haddana Ilaahay go'aanka saxda ku waafajinaya haddana anigu waxa uunba isii jeclaysiin markasta dabkan gudaha ka shidan waxay ahaan jirtay inaan meel haddaan muuqaaladeeda daawado haddaan YouTube-ka ka daawado qof ma garanaysaa blockchain-ka iyo arrimaha ka hadlaya waxay ahaan jirtay wax aan ku nafiso oo kale wax aan istiraah ka helo oo aan ku nafiso oo aan ku raaxaysto qofkaasi waxa uu ka sheekaynayo 2021 baa yimid ayaa la yimid 2021 September adigu June meelaha ilaa May ayaa sharciga helay September ayaa soo qaatay abkii ugu horeeyay baan la soo degay waan isdiiwaan geliyay passportka Soomaaliga baan soo qaatay iyo left deganaansho Jarmalka intii baan isku diiwaan geliyay waa la iga ogolaaday abkii interviewga sida dhamaantiin baa wada ognahay lagu soo fadhiisanay kamarada kaasaa maray waa la iga ogolaaday markii ugu horeysay baan haddaba waxaan idhi okay haddaba markaan abkii sidaa usoo degay baa waxaan idhi haddaba maxaa u baahan tahay isdiiwaan geliyey ma garanaysaa verifisiiqumkii aan ku samaystay ayaan idhi haddaba maxaa u baahan tahay okay waxaa u baahan tahay haddaba inaad investment samayso oo ma garanaysaa aanad nacamtii markiiba waan fahmay in suuqan laba qaab ma garanaysaa loogu jiro in investment iyo trading ayna tahay marka aniga waxaa ii soo baxday in maadaama aan rabo inaan xirfad barto oo aan waqtigaa ku guda jiray aan hawlahaygu iska badan yihiin dhinaca kale aan aaba ka ahay aan shaqaale ahay oo dee xirfad barasho waqtigaa waxaan tegi jiray markaa laba cisho waxaan tegi jiray iskuul
3 cishana waxaan tegi jiray meel shaqo, waxaan bartay anigu master logistic baan iminka ku shaqeeyaa. Marka xirfadaasaan waqtigaa diyaarinayay. Waa xirfad 3 sanadooda dalka Jarmalka marka la joogo. Kadib waxaa ii soo baxday in 100% aniga ay igu soo baxayso inaan investment sameeyo. Waayo mar walba nacamtii waxaan yar ahay dadka eega dadku way kala duwan yihiin, waxaan ahay dadka eega xagga fog aan nacamtii xagga yaroo soke badanaa eegin laakiin nacamtii 5 sano kadib nacamtii sidee noqon doontaa oo kale noloshaadu, 4 sano kadib haddaad noolaato sidee noqon doontaa noloshaadu. Markaa isla markaana 4taas sannadood u sii shaqaysto kale, 5taas sannadood u sii shaqaysto kale, nacamtii waxyaabaha sii wanaajinaya sidaas oo kale samee. Sababtoo waxaa mar walba aniga 100% iga dhaadhacday inay investment-igu igu soo baxayo. Investment-kii baan guda galay. Investment-iga haddaba markaa sidaa u guda galay ayaan markii ugu horreysay wax xasuustaa. Wixii aan lacag hayay haddaba halkan xigmad badan baa ku jirta. Iminka intaan ka wada hadlaynay oo dhan waxa ahayd theory. Laakiin practicalkii baa la isla imanaya. Practicalka waa adig iyo nacamtii suuqi markaad iminka wax barato xitaa tusaale ahaan marka koorso qaadato ee theory laguu sheego dee adigii portfolio-daadii baa isku hadhaya hadhow toole. Ma garanaysaa? Waa halka ma garanaysaa ugu adag. Dadka badankoodu waxay moodaan inay ma garanaysaa barashada koowaad ay adag tahay. Laakiin barashada koowaad xitaa ma adka. Because of macallin baa heli kartaa, FSC baad heli kartaa, oo Somali Finance baa ku garab qaban kartaa oo nacamtii koorso ku siin kartaa. Laakiin marka koorso lagu siiyo hadhow toole koorsadii iyo practical sidii ay isku qabanaysay nacamtii sidaa isku waafajinaysaa waa inta ugu adag. Aniga markaa markii ugu horreysay lacagtii aan hayay oo dhan baan geliyay. U fiirso, koorso maan qaadan, waxa maan qaadan, theory un baan ka dheragsanaa. 2018 theory-ga la bilaabay ayaa ilaa 2021 YouTube la daawanayay. Wuxuu la akhrinayay. Kolba ma garanaysaa war ku saabsan Bitcoin la daawanayay. Waxaa xasuustaa ku dheeranayo darsi. Wax la kala had. Kooraska hoos buu soo dhacayaa. Sare u dhacayaa. Sida baa jirta. Waxay baa jirta. Wadnagelin baa ka dambeeya. I don't care.